siyaasi Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen ayaa maanta ka badan 40 booyadood oo biyo gaarsiiyay badi deegaanada degmada Faraweyne ee gobolka Maroodijeex oo ay ka jirto abaar ba'an oo dad iyo dunyaba saameyn ba'an ku yeelatay. siyaasiga oo cagta saaray badiba deegaanada uu biyaha gaarsiiyay ayaa indhaha ka soo qaaday xaaladda adag ee deegaanadaasi ka taagan, waxaana uu soo jeediyay in dadka iyo dunyada ku nool deegaanadan la gaarsiiyo wixii caawimaad iyo gargaar ee la kari karo dad iyo dawladba. geestooda dadyooga ee deeqdan biyaha gaadha ayaa ka mahadnaqay siyaasi Ibraahim inuu xilligan adag la dareen noqday dadkiisa. mahadnaq iyo duco ayaan halkan uga soo jeedinaa xildhibaanka Ibraahim Cabdi Xuseen oo keenay booyadaha dadka la siinaya masaakiinta 40 booyadood oo dadka masaakiinta loo qaybinayo iyadoo aynu ku jirno abaar dad iyo dunyabaeel darajo wanaagsan Allah gaarsiiyo biidnillaahi kariim. waxaanu joognaa dooxii dhaboolaq dooxa dhaboolaq hadaanu joogno waxaanu ognahay in dad iyo dunyaba inay abaaraysan tahay. abaar biyood iyo dunyadu cunto iyo dad cuno intuba way liidataa. waxa duco mudan oo aanu u ducaynaynaa oo aanu u mahadnaqaynaa ninka la yiraahdo musharax weli xildhibaan muu gaadhin musharax Ibraahim Cabdi Xuseen ayaanu u mahadnaqaynaa oo boqol ugu mahad 40 booyadood buu ugu deeqay degmada Faraweyne siday u kala baahi badan tahay. inta sida awgeed xildhibaanka waan u ducaynaa xildhibaan hamadaada iyo waxa ka horeeya Allah ku hirgeliyo. marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa xildhibaankeena Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen oo maanta 40 booyadood oo biyo inoo keenay oo maanta oo kaliya aanoo iman oo ninkaasi intii 34 sano wadanka lagu jiray degmada Faraweyne ku soo noqonayay haday waxbarashada tahay haday waxyaalaha kale asaasiga ah tahay haday markii la qaaday kaararka iyo dadka sidii loo guray ay tahay ninkaasi waa nin degmadu ay og tahay oo ku suntan tahay oo maanta anigu aanan cidna u sheegayn. xildhibaanku waxaan leenahay haddii aynu doorano inta iyo in ka badanba inuu ku soo noqon doono oo dadka wax u qaban doono ayaan aad iyo aad uga rajaynayaa. halkan oo kaliya wax kama qabtay marka magaaladii la joogana xildhibaanka sidaas baa loo saarayayo baahiyaha dadka sidaas buu uga jawaabaa. waxa kale oo halka aan baaq uga dirayaa dadka degmada Faraweyne u dhashay haday siyaasiyiin yihiin iyo dadkii laga doortay degmada haday yihiin waxaan leenahay dadkaasi dhagaha furta indhihiina Faraweyne ha qabtaan dadkiina u soo gurmada. waxaan ku sugannahay deegaanka degmada Faraweyne gaar ahaan degmadii anagoo soo marnay tuulooyin kamida degmada Faraweyne halkaasoo maanta aanu 40 booyadood oo kaga qayb qaadanayno waqtiga adag iyo xaaladda culus ee ku jiraan dadka deegaanka ka soo jeeda oo ugu horeeyo Ibraahim Cabdi Xuseen musharax oo intaasi sadaqo uga baxay. ugu horeyn Ilaahay baa mahad leh. marka xigta waxaan u mahadnaqayaa Ibraahim Cabdi Xuseen oo gartay inuu deegaankiisa degmada Faraweyne u soo gurmadka abaaraha ee ka jira deegaanka ee biyo la'aanta inuu ka qayb qaato 40 booyadood oo deegaanka oo dhan u soo qaybiyay. waa ku mahadsan yahay Ibraahim sida uu waqtiga adigu soo garab istaagay deegaankiisii iyo degmadiisii waana ku mahadsan yahay. ganacsatada kale ee deegaankana waxaanu leenahay waqtiga adag ee lagu jiray abaarta hantida iyo maalka Ilaahay idin siiyay sadaqada ka bixiya oo dadkiina jilicsan leh ee biyo la'aanta iyo abaarta isugu darsameen imkana biyihii gaabaabsiga ku noqdayna biyo la soo gaadhay rabaan. marka xigtana waxaan u mahad celinayaa murashax xildhibaan Ibraahim Cabdi Xuseen oo maanta deegaanka Faraweyne soo gaarsiiyay 40 booyadood oo kaga qayb qaadanayo biyo la'aanta maanta ka jirta deegaanka Faraweyne iyo guud ahaan degmadaba. marka runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa in maanta gurmadkii u horeeyay uu soo gaarsiiyo deegaanka Faraweyne. waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay murashax. waxaanu halkan runtii ka cadeynaynaa inaanu maanta ka gudoonay
afartankaa booyadood oo loogu talagalay dadku siday maaragtay u sii kala jilicsan yihiin. halkan waxaa noogu yimid biyihii caawimada oo uu bixiyey Ibraahim Cabdi Xuseen ajar iyo xasanad Allah ka siiyo 40 booyadood buu ugu talagalay degmada Faraweyne qaybteedii wata shubaysa. halkan fariin waxaan uga farayaa nimanka degmada u dhashay ee aan wali waxba na soo gaarsiin xildhibaanada siikaagu ka mid yahay gacmo dheer ka mid yahay ganacsatadu ka mid tahay inay nala soo gaaraan oo sida Ibraahim noogu soo deeqay si la mid ay noogu keenaan. waxba hadal badan oran maayo oo meesheedba maaha waxaan baan u soconay waatan inuu ognahay abaaruhu dhaceen kulay cimilooyinkii waxba isbedelay. horta ilaahay baan ka baryaynaa inuu ilaahay abaaraha inaga jabiyo. arrintan maanta la soconayna waxay hayduun waajib annagana saaran oo aanu kaga qayb qaadanaynay baahiyaha degmadan Faraweyne ay qabto ee faraha badan leh qayb kamida oo ah maanta biyo dhaamis. kollayna degmadu waa degmo ballaaran 40 booyadood ee ugu talagalay ee maanta aanu qaybinaynay waxba kama gaadhayaan dhibic yar uun bay ku noqonayaan. degmaduna aad bay u ballaaran tahay laakiin intaanu gaarsiinay waxa weeye waa intii karaanka iyaga ahayd. inta kale aanay gaadhina waxaanu leenahay waanu soo gaarsiin doonaa wixii dambeena helay insha Allah tacaala wayna soo socotaa. keenistan aanu keenay deeqdan yar maaha waxaanu anagu maanta sida dadka qaarkood u fikirayaan aan cod kaga doonayno ma aha. waxa weeye waa waajib na saaran waa inta karaanka iyagu yahay qof walba intuu karaankiisu yahay waajib ba saaran intuu qaban karayo waa inuu qabtaa uu dadkiisa caawiya oo uu bixiya. haddii aan cod wax ku doonayo taan risla ka soo guray ee horeen degmadan ugu lahaa taasaan ku dooni